halkani waa bartamaha degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir si loo bedelo muuqaalka laga heesto dhanka amniga ayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha uu heliyo wasiiru dawlihiisa iyo qaar ka mid ah madaxda amniga waxa ay kormeer la xiriira dhanka amniga ay ku marayaan galabta degmadan shati ganacsiga leedahay ka bilaaban marka kadib wax ka gadan waa wasiir maareeyo oo ka dukaamaysanaya goobaha ganacsi ee ku yaala wadooyinka degmadan waxa uu muwaadinkan ganacsadaha ah kala sheekeysanaya sida uu u ganacsanayo iyo amniga uu dareemayo xubnahan uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waqtigan ay sii leecayso qoraxda waxa ay barxadan weyn oo ay ka socoto ciyaar aad u xiiso badan ka daawanaya waxayna dhalinyaradu ay ku booriyeen in ay gacan siiyaan maamulka degmadan ka shaqaynta amniga iyo darasaynta gudoomiyaha degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in kormeerkan wasiiradu ay dhiirigelin weyn u tahay shacabka degmada iyo ka maamul ahaanna ay ka go'an tahay xaqiijinta amniga degmadan anagoo ah maamulka degmada Dharkiinle waxaan dareemaynaa in degmada Dharkiinle ay tahay qayb ka inay tahay mid nabadgelyo leh bulshada soo dhaweynayaan dareensan yahay wuxuu indhiisa ku arkay wasiirka waxaan rajaynaynaa in laga gaarsiyo golaha wasiirada in waxa laga haysto muuq laga haysto inaynan ahayn muuq jiro wasiirka waxaan leenahay waa mahadsan tahay booqashadaana ma noqon doonto maanta oo kaliya wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ee dawladda Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa qeexay qorshaha xukuumadda nabad iyo nolol ay ka leedahay caasimadda Soomaaliya ee dhanka amniga qorshahan waa qorshaha dawladda Soomaaliya ay doonayso inay ku nabadayso caasimadda dalka waxaan soo maray meelo laamiyadu ka xidhan yihiin magaalo madaxda dalku waa meeshii sharafkii ummadda Soomaaliyeed waa maskaxdii ummadda Soomaaliyeed dadkeeduna waa dadka runtii qiimo leh ma astaahilaan in noloshu ay ciriiri ku noqoto in ay isu gudbi waayaan in ay ciidan iyo sharaaftan ku raaxaysan waayaan argagixisadu position kuma leh Muqdisho wixii hadda ka dambeeya waa in laga nadiifiyaa dadka Muqdisho waxaanu ka codsanaynaa dawlad ahaan diyaar baanu nahay inaanu amniga idila sugno inaanu naf iyo maal ku bixino inaad nabad iyo sharaf iyo karaamo heshaan caruurtiinu inay nabad ku ciido ayaad xaq u leedihiin maamulkan degmada Dharkiinle ayaa looga fadhiyaa tallaabooyin waaweyn oo ay ka mid tahay sugidda ammaanka guud ee degmada dhanka nadaafadda ogaanshaha dadka soo imaanaya degmadan sidii looga warqabi lahaa iyo arrinta darasaynta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ku kala qoray 17 degmo ee caasimadda si loo daadajiyo adeega dawladda isla markaana looga warqabo nolosha iyo amniga shacabku ay ku sugan yihiin waa wasiirkii ugu horeeyay ee kormeer ku taga degmadii lagu qoray